bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan oo aad ku soo saqdaan barnaamijyadeena qodobada ugu waaweyn ee aan daawadayaal saaxiibayaal idinkugu soo gudbi doonana barnaamijyadeedkan idinku soo maqana waxaa ka mid noqonaya dagaalo culus ayaa ka socda bariga Ukraine goobo muhiim ah ayay ku socdaan duqeymo xoogan oo ka imaanaya ciidamada Ruushka warayaan daawadayaal idinkageena ciidamada Ruushku waxa ay doonayaan in ay gebi ahaanba gacanta ku dhigaan magaalada Zaporizhzhia oo maamulkooda halkaasi laga hirgeliyo wararkii ugu dambeeyay ee soo baxaya ayaa daawadayaal daawan doontaan ciidamada Ruushku sidoo kale waxay sii wadaan weerarada ay ku hayaan fariisimaha Ukraine ee waqooyiga magaalada Kharkiv xoga ayaa laga helayaa Mariupol waxaa la sheegay in ay halis ugu jirto in uu ka dilaaco cudurka daacuunka halkaasi dhibaato culus ayaa sidoo kale laga soo warinaya waynu isla eegi doonaa ciidamada Ruushku waxa ay fariisimo cusub ka sameysteen gobolada koonfureed ee Kherson iyo sidoo kale Zaporizhzhia warar ayaa laga helayaa halkan ayaan idinku soo gudbi doonaa daawadayaal madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu ugu baaqay hogaamiyaha Jarmalka in uu taageeradiisa Ukraine soo gaarsiiyo Kiev isla markaana uu cadeeyo mowqifkiisa ugu dambeeya ee ku aadan dagaalka Ukraine iyo sidoo kale Ruushka warayaan daawadayaal idinkageena arrimahaas ayaan isla gorfeen doonaa soo dhawaada daawadayaal saaxiibayaal muuqaalkan like saar sina share garay inagu soo biir subscribe inoo saar channelka Furagan Bareelka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinku soo gudbino waa ku maasantahay daawadayaal la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigan aragtidaada saliimka inoogu reeb markaana daawade waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada qodobadii dulmarkooda aynu soo dulmarnay saraakiisha Ruushka ayaa sheegay in ciidamadoodu ay u dagaalamayaan xureyn dhameystiran oo Donbass ah taas oo sii balaarin doonta ujeedkooda waxa ay markaasi ku sii baahayaan gobolada bari ee Ukraine ee Donetsk iyo sidoo kale Luhansk halkaas oo gooni u goosadku Ruushku taageerayo ay qabsadeen dhul muhiim ah ka hor duulaanka Ruushka ayaa horumar gaabisa ka sameeyay bariga wuxuuna hadda maamulaa in ka badan 90% gobolka Luhansk ciidamada Ruushka ayaa isku dayaya in ay si buuxda ula wareegaan magaalada Zaporizhzhia waxay hadda qabsadeen dhammaan xaafadaha magaalada sida uu sheegay macadka daraasaadka dagaalka ee magaciisa loo soo gaabiyo ISW dagaalkuna wuxuu ku badan yahay agagaarka warshadaha la yiraahdo Azot qaadashada magaalada waa mid ka mid ah ujeedooyinka ugu muhiimsan ee Ruushka sababtoo ah waxay la macno tahay in ay maamulaan ku dhawaad dhammaan gobolka Luhansk khubarada falaqeeya siyaasadda labadaas wadan waxay aaminsan yihiin in si guul ah looga gaari karo weerarka Donbass ciidamada Ruushku waa in ay dhameystiraan ficilada hamiga leh ama sameeyaan weeraro wabiga laga gudbo ayay yiraahdeen si kastaba ha ahaatee ciidamada Ruushka ayaa qarxiyay buudooyinka isku xira Zaporizhzhia iyo Lashang iyagoo jaray qadadka isgaarsiinta ee Ukraine laakiin waxay sii adkeeyeen dadaalkooda ah in ay ka gudbaan wabiga Zaporizhzhia Donetsk ciidamada Ruushka ayaa ka dhaqaaqay waqooyiga Bobosna iyadoo wadada muhiimka ah ee saadka ka timaada Bakhmut ilaa Lashang ay duqeeyeen madaafiicda Ruushka wasaaradda difaaca ee Ukraine ayaa sheegtay in ay u badan tahay in Ruushka uu soo gaaray khasaaro baan oo la gaarsiiyay saraakiisheeda dhexe iyo sidoo kale kuwa hoose waxay sheegtay wasaaraddu in khasaarahan ay u badan tahay in uu gacan ka geysto luminta niyadda iyo anshaxa liita ee ka midka ah darajooyinka hoose waxaa kale la burburiyay tiro aad u badan oo hub ah oo uu Ruushku leeyahay natiijo ahaan Ruushku wuxuu isku dayay in uu isku daro qaar ka mid ah cutubyo aad u yar oo sameeyay waxa falaqeeyaasha qaarkood ay ugu yeereen ciidamada Frankenstein si ay uga dagaalamaan bariga dhanka waqooyi cutubyo Ruushka ayaa isku dayaya in ay ka reexaan goobaha Ukraine ee waqooyiga Kharkiv ka fogaanshaha xadka Ruushka oo ay dib ugu noqdaan magaalada sida uu qabo ISW ciidamada Ruushka ayaa la rumaysan yahay in ay xoojinayaan difaacyada ee u dhaxeeya magaalada Kharkiv iyo sidoo kale xadka Ruushka ayaa si buuxda u bartilmaameedsanaya kontaroolka koonfurta
ciidamada Ruushka ayaa markii hore guulo degdeg ah ka gaaray koonfurta iyadoo ujeedkooda ugu weyn uu ahaa abuuritaanka marin dhulka ah oo u dhaxeeya Crimea oo ay la wareegeen 2014 iyo meelaha ay haystaan kooxaha gooni u goosadka ee Ruushku taageero ee Donetsk iyo sidoo kale Luhansk. laakiin iska caabin xoogan oo uga yimid ciidamada Ukraine ee u dhow Mykolaiv ee galbeedka iyo Mariupol ayaa si weyn hoos ugu dhigay horumarka Ruushka ayaa hadda si buuxda gacanta ugu haya magaalada dekedda leh Mariupol kadib markii go'doomin socotay in ka badan 2 bilood la soo afjaray 20kii May. biyo la'aan iyo tashiilaad caafimaad ayaa ka jirta Mariupol waxayna magaaladu halis ugu jirtaa in uu ka dilaco daacun weyn sida uu qabo mood. ilaa 100,000 oo qof ayaa weli ku sugan magaalada. ISW ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ay xoojinayaan weerarada dhulka ee gobolka Zaporizhia. dhanka galbeed Ruushku waxa uu damacay in uu gacanta ku dhigo Odessa oo uu ka gooyo marinka Ukraine ee badda madow, laakiin ciidamadooda waxaa xanibay difaac adag oo Mykolaiv ah waxaana lagu qasbay in ay dib ugu noqdaan Kherson weerar celin ah oo Ukraine ay sameysay bishii March. falaqayaasha ayaa sheegaya in Ruushku uu sii waday xoojinta difaaca hawada ee jasiiradda Snack Island ee ku taal badda madow si ay u difaacaan maraakiibtooda badda ee go'doomiye xeebaha Ukraine oo ay caqabad ku noqdaan dib u soo celinta ganacsiga. Ruushka ayaa weeraray Ukraine 24kii Febraayo, laakiin ciidamada Ukraine ayaa dib u qabsaday goobo badan oo ku xeeran Kiev horaantii Abriil kadib markii Ruushka uu ka tanaasulay u riixitaanka caasimadda. deegaano ku yaala galbeedka dalka oo ay ku jirto Lviv ayaa lagu arkay weeraro gantaalo ah, balse ma jirto wax isku day ah oo ciidamada Ruushku ay ku doonayeen in ay dhulka ku qabsadaan. ugu dambeyntii daawadayaal aynu abaarnay hogaamiyaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa dhigiisa Jarmalka waxa uu ugu baaqay in uu cadeeyo mowqifkiisa isla markaana uu taageero la soo gaaro dalkiisa Ukraine. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ugu baaqay hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz in uu taageero cad u muujiyo Ukraine. waraysi uu siiyay telefishinka Jarmalka ee magaciisa loo soo gaabiyay ZDF habeennimadii Isniinta, Volodymyr Zelensky wuxuu sheegay in Jarmalku uusan isku dayin in uu isku dheelitiro danihiisa Ukraine iyo xiriirka uu la leeyahay Ruushka. waxaan uga baahanahay Chancellor Scholz in Jarmalku uu taageero Ukraine, ay yiri isaga iyo dawladdiisa waa in ay go'aansadaan. ma jiri karo wax ganacsi ah u dhaxeeya Ukraine iyo xiriirka Ruushka. waxaa jiray warar la isla dhexmaray oo sheegaya in Scholz uu safarkiisii ugu horeeyay ku tagay caasimadda dalka Ukraine ee Kiev tan iyo markii uu duulaanku bilowday dabayaaqadii toddobaadkan. kansalarka ayaa Jarmalka ka difaacay eedeymaha in uusan gaarsiin doonin hub oo u ballan qaaday Ukraine. kahor inta aan la keenin hubka casriga askarta Ukraine waxay u baahnaayeen in la tababaro sida loo isticmaalo hubka, ayuu yiri. siyaasiyiinta hormuudka ka ah ee ka kala socda qaybaha kala duwan ee siyaasadda Jarmalka ayaa ku eedeeyay Scholz in uu u dhaqmay sidii jabinta hubka oo kale. haddaba daawadayaal wax waliba oo ku soo kordha dagaalka Ukraine iyo Ruushka wararkeena dambe ayaa kaga bogan doontaan, halkaas ayaana idinkugu soo gudbin doonaa. muuqaalkan la garay sii share garay inagu soo biir subscribe inoo saar channelka fura gambalaalka si durbadiiba ay ku soo gaaraan muuqaaladaynu halkan idinkugu soo gudbino. waa ku maasantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba. qaybta hoose ee faalada lagu gudbiya commentigana aragtidaada saliimka inoogu reeb. tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal saaxiibayaal intaynu dib isugu kulmi doono nabadgelyo.